Ugu salaamay daawada ku soo dhow muuqaalka maanta ka hadli doona xaaladda ka taagan bariga Yurub ee u dhaxaysa Ruushka iyo Ukraine. Haddii aan rabno inaan ka faalloono xaaladda u dhaxaysa labada wadan, waxaa muhiim ah inaan xasuusnaano oo dib ugu noqono 2014 oo ah xilliga uu Ruushku ka qabsaday jasiiradda Crimea waddanka Ukraine. Sidoo kale waxaa xusid mudan in la tilmaamo in waddanka Ruushku uu hor istaag ku sameeyay si aanay Ukraine ugu biirin gaashaanbuurta NATO. Ruushka ayaa muddo dheer hortaagnaa dadaallo Ukraine ay doonayso inay ugu biirto isla markaana NATO ay ku biirto oo ay ka mid noqoto xulafada NATO, taasi oo micnaheedu tahay haddii ay ku biirto in gaashaanbuurta NATO ay xuduudda Ruushka waxba u jirin. Haddaba waxaa xusid mudan markii dalka Ukraine iska riday madaxweynihii gacansaarka la lahaa Ruushka sanadkii 2014, Ruushka ayaa gacanka Crimea ka qabsaday Ukraine, halka uu kooxo Ruushka taabacsan ay gooni isku-taag kaga dhawaaqeen gacanka Crimea, isla markaana afti laga qaaday ay gacanka Crimea kaga mid noqotay waddanka Ruushka. Haddaba colaadda ka taagan bariga Ukraine ayaa socota ilaa maanta. Ukraine waxa ay sheegtaa in Ruushku taangiyo madaafiic iyo qoryaha wax lagu shisho ay soo dhoobeen xuduudda ay wadaagaan labada dal. Sidoo kale waxa ay ku warramayaan in ciidamo ka badan 90,000 oo Ruushihii ay ku sugan yihiin meel u dhow xadka Ukraine, taasi oo ah arrimaha walaaca sii korinaysa. Haddaba dhammaadkii sanadkii hore ama bishii Disembar ayaa ay isu soo tareen wararka sheegaya in Ruushku rabo inuu qabsado Ukraine, taasi oo Maraykanku ku tilmaamay in sanadka cusub 2022 bisha koowaad oo ah bishii haddayna dhaaftay inuu Ruushku rabo inuu weeraro Ukraine, balse taasi waa ay beenowday. Sidoo kale Maraykanku ilaa maanta waxa uu rumaysan yahay in Ruushku rabo inuu weeraro Ukraine. Saacadihii ugu dambeeyay, madaxweynaha waddanka Maraykanka Joe Biden ayaa xaqiijiyay in uu Ruushku si walba ha ahaatee uu weerari doono Ukraine, isla markaana qabsan doono. Haddaba xaaladda ka taagan Ruushka iyo Ukraine ayaa ah mid saacadihii ugu dambeeyay labada gobol ee bariga Ukraine, Donetsk iyo Luhansk ayaa waxa ka taagan cabsi xooggan kadib markii hogaamiyaasha labada gobol ay ku dhawaaqeen in shacabku ka dheeraado meelaha ay ciidamadu joogaan, isla markaana ay noqon karto fagaaro dagaal. Taasi ayaa ku sii horisay dabka xaaladda ka taagan labadan wadan. Haddaba Ruushka ayaa isagu awooddiisa oo dhan waxa uu isugu keenay xuduudaha uu la wadaago wadamada Yurub, isla markaana ah wadannada la deriska waddanka Ukraine. Haddaba Ruushku inta badan waxa uu Yurub ka iibiyaa gaaska dabiiciga, taasi oo ku keenaysa in qaaradda Yurub ay isfurfuraan, isla markaana ay qaarna taageeraan Ruushka, qaarka kalena ay taageeraan Ukraine. Balse dagaalkani waxa uu si toos ah ugula dhexeeyaa, isla markaana daaha dibadiisa laga maamulaya uu yahay quwadaha Ruushka iyo Maraykanka, maadaama uu NATO u horkacay waddanka Maraykanku. Maraykanka ayaa geeyay ciidamo badan dhammaadkii sanadkiina dhaafay, isla markaana waxa uu diray maraakiibtiisa dagaalka iyo diyaaradihiisa casriga ah. Mahadsan daawashada muuqaalka. Aad u sii daraan.